dowladda hoose degmada Burco ayaa howlgal ballaaran oo ay sameysay ku soo qabatay raashin tiradoodu badan tahay oo waqtigoodu dhacay isla markaana laga iibinayay bulshada rayidka howlgalkan oo ay fulinayeen kooxda hay'adda ama fayadhowrka ee dowladda hoose degmada Burco oo kaashanaya gudida fulinta iyo xildhibaanada degmada Burco xogayaha fulinta ee dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa si adag ula hadlay dadka caadaystay inay ka ganacsadaan alaabooyinka kala duwan ee waqtigoodu dhacay isagoo fariin adag u diray waxaana uu yiri marka waxaan uga digaynaa dadweynaha maanta oo taariikhda tan aan idin sheegayno waxa halkan imka ka dhacday raashinka inta laag ee dhabarkayga yaala ee gaariga saaran waa bariis triple B ga halka waka midabkii loonkii bariiskuna waa bariiska sidaa u dhacay ee midabkiisa sida ay isu bedelaan aragtaan intuu casaaday tatabay xumaaday raashinka baabuur laga soo qaaday bakhaarada istoodhada waanu ognahay waa farabaday xuub caara ayaa ku samaysmay midabkiisuna waa ka isu bedelay bani aadan baa laga iibinayaa dawladda haddaanu nahayna hoosana ma ogolin mana aqbalayno umana dulqaadanayno istoodhada noocaasa ee magaalada lagu iibinayo ee dadka shacabka aan wakiilka ama mas'uulka uga nahay ee laga iibinayo kaba yeelino waxa way tallaabo cad baan ka qaadaynaa waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa sunta la idinka iibinayo ee caafimaadkiina wax yeelaya ee caruurtiina laynaya ee naftiina wuxuu taraska daayidinkii wax yeelay idinku gaarsiinaya inaydaan qarsan xildhibaan Siciid Axmed Maxamed Raago oo kamid ah xildhibaanada degmada Burco ayaa sheegay in dowladda hoose aanay ka fadhiisan doonin una heelan tahay in bulshadii soo doorat ay helaan adeegyo tayo leh halkan waxa weeye 2014 waxaan u sheegaynaa shacabka reer Burco iyo ganacsatada reer Burco ama halkan aan u marinaynaa digniin in ay la shaqeeyaan tiimka fayadhowrka ah gaar ahaan hudheelada maqaaxiyaha iyo bakhaarada iyo farmasiyada waxaanu doonaynaa in aan u samaysano qorshe hawleed sanadkan in bulshada fayadhowrkeeda la ilaaliyo sharciga iyo xeerkiina waa noo dhisan yahay waan ku shaqeynaynaa maaha markii ugu horeysay ee dowladda hoose degmada Burco soo qabato alaabooyin kala duwan oo waqtigoodu dhacay balse howlgalkan ayaa howlgalkii saddexaad ee dowladda hoose degmada Burco ku soo qabato raashin kala duwan oo waqtigoodu dhacay waa Cabdi Safaar Cabdilaahi iyo Cabdi Sattaar Cabdilaahi Cali TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.